ورد دقدقة saaka magaalada Baydhabo ee gobolka Bay dagaal culus ayaa ka qarxay inta aadan madoobi uu ku maqan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dabka la saaraya birtana waa la iska aslaya meel maran ayuu u soo laabanaya ninkan rasaas toos ayaa ka dhacaysa gudaha magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ila arag saaka xaalka sida uu yahay markan intii hore way dhaaftay baash Cabdicaziz lafta gareen isaga ku soo wajahana la yiri duleedka magaalada Baydhabo ciidankiisa meesha ay joogan ayuu imaanaya wuxuuna hogaaminayaa dagaalka mar kalena wuxuu rabaa inuu xoog ku qaato kursigii markii horeba xoog looga qaatay afaridoodka Baydhabo ayay aroor hor rasaas ka dhacaysa bal ila arag هذا حبض أنا كسرت في الدود ك. ساق ولا ساق الله حي في الدود بعد أبو حبض السنة. haddaba waxaan kula wadaagayaa dagaalkan dhacaya khasaaraha uu dhaliyay cida iska leh duulaanka iyo sida ay wax u socdaan iyo wax kasta oo la xiriira dagaalada Baydhabo aadamadooda Muqdisho ayuu ku sugan yahay waxaana ka aamin baxay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo isiri dhinaca kale ama u wareegtaa ninkan cabsi weyn uu ka muujiyay Xasan maadaama xisbiga himilo qaran ninkan uu hore uga tirsanaa oo isaga shariifka ay saaxiib ahaayeen wuxuu isiri amuuba afgambiya xildhibaanada Xasan Sheikh mar kale dooq ayuu sameysanayaa oo waxaaba uu rabaa in aadamadooda la afgambiyo amni darrada ee magaalada ayuuba ka shaqeynaya leeyahay ninkii shalay uu buusay xitaa inay heshiyaan mar kale waa laga yaabaa haddaba wararkaas Baydhabo ayaan soo koobaynaa soo dhawo saaxiib muuqaalka like saar siina share garay waa maasan tahay saakay oo taariikhdu tahay 19 bisha June subaxnimo Jimcaha waxaa aroor hore la maqlay rasaas waxaa ka sii horeeyay tira hoobiyaal iyo madaafiic oo magaalada hareeraheeda ku soo dhacay lagana soo tuuray duleedka magaalada waxa sidaas sameynaya waa ciidanka Cabdicaziz lafta gareen waxaana ku jira saraakiil magacyadoodu ay caan yihiin oo markaasi qaadaya talaabooyin ay rabaan in mar kale gacantoodu ay dib ugu soo celiyaan magaalada Baydhabo horey waxaa looga adkaaday oo magaaladaas gabi ahaanba laga saaray sidaad ogeydeen Cabdicaziz lafta gareen iyo ciidankii isaga daacadda u ahaa oo isaga baxay guud ahaan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay sababtuna waxay ahayd inay danta ku khasabtay inay ka cararaan magaalada Baydhabo hadda mar kale awood ay soo yeesheen kadib doorashadii beenta ahayd ee ninka aadamadoobe la yiraahdo oo hadda xamar ku maqan waxaana la leeyahay magaalada aroor hore waa la soo weeraray xarumo badan ayaa ilaa ay hadda gacanta u galay baa la leeyahay ciidanka Cabdicaziz lafta gareen waxayna ku sii siqayaan garoonka Shaati Gaduud iyo sidoo kale madaxtooyada Villa Baydhabo waxaa muuqanaysa marka in laga yaabo saacadaha soo aadanba in lagu kala baxo magaalada Baydhabo ee gobolka Bay wixii isaga uu sameeyay qaab daradii uu kursiga ku qaatay ayaa isaguna lagu sameynayaa baa la yiri waana wax markaasi dadka qaar ay ku tilmaameen in ay tahay cadaaladii oo soo degdegtay Cabdicaziz lafta gareen qorshihiisa ugu weyn waa in uu la wareego magaalada Baydhabo ee gobolka Bay isla markaana uu soo cisto xukunkii sida xoog ah markii horeba looga qaatay aan qaabka xalaasha ah markaasi loogu qaadan Sheikh Aadan Madoobe isaguna kulan muhiim ayuu la qaatay safiirka dawladda Shiinaha u fadhiyo Soomaaliya habeennimadii xalay waxaana South West war lagu daabacay lagu yiri madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Sheikh Aadan Madoobe ayaa magaalada Muqdisho kulan miradhila kula qaatay baa la yiri safiirka dawladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya mudane Wang Yo kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka saaxiibtinimo iyo iskaashiga soo jireenka ee u dhaxeeya Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Shacabweynaha Shiinaha iyadoo labada dhinacba ay isla garteen baa la yiri muhiimadda ay leedahay in la sii ambaqaado wada shaqeynta dhinacyada sida arrimaha dhaqaalaha kaabayaasha iyo horumarka deegaanada Koonfur Galbeed muxuu Koonfur Galbeed isla haysiyaa inta uu xamar ku maqan yahay waa lagu dhamaadaa leeyahay ninka danjiran waanyi ayaa ugu hambaliyay madaxweyne Aadan Madoobe doorashadii loogu doortay Baydhabo isagoo dhankiisa xaqiijiyay sida dawladda Shiinaha ay uga go'an tahay si xoojinta iskaashiga u dhaxeeya Soomaaliya iyo Shiinaha isagoo muujiyay diyaar u ahaanshaha dawladda Shiinaha ee taageerida dadaalada horumarineed iyo mashaariicda laga hirgelinayo deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya sida Aadan Madoobe uu soo xarxariiqday kulankan ayaa ahaa mid markaasi ay dadaal ku bixinayso dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya inay ku xoojiso baa la yiri
deeq bixiyaasha caalamiga ah ee ay saaxiibka dhow ka dhiganayso ama ay u dawarsi tagayso. waxaa muuqata marka hogaamiye Aadan Madoobe in markaasi hadda uu cagta saara baa la yiri dhabbihii uu ku jabi lahaa, waxaana la leeyahay magaalada Baydhabo inta uu isagu maqan yahay ayayba gacantiisa ka sii bixaysa. maxay tahay adiga aragtidaada qaybta hoose ee faallada noogu reeb? Aadan Madoobe ma ku soo laaban doona isagoo madaxweyne ah? dagaalada Baydhabo hadda ka socdana mas'uuliyadooda yaa qaadaya? saaxiib like saar, subscribe, soo dhisiina, share garee. waa mahadsantahay.